halkaas halka laga hagaaga waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu nabi alayhi salatu wassalam wariyada nabi maxamed uu leeyahay dhigay jirka bini aadanka waslad baa ku jirta haday hagaagto jirko dhan baa hagaagi haday baanaatana jirko dhan baa baanaano xumaan taasina waa qalbiga rasuulku yiri qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday addoomihiisi addoon kamid uu yeedhay maalin wuxuu lacagtan qaad Abu Dharr al-Ghifari uu geey hadduu lacagta Abu Dharr hadduu lacagta ka qaatana xor baa tahay buu geeyay xor waan ku xoreeyay Abu Dharr markaa magaalada Madiina dibadeedu deganaa ribda meel leeyda oo Uthman bin Affan baa ku halka u guur adigu waayo nin zaahid abu ahaa qarnigii nabiga moodaa inuu joogo isagu dadka taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali cariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhiganin baa lacag diidi kara soo salaam ahinde mani baa lacag diidaya iska jecel lahay oo yimiday oo salaamay wuxuu amiirkii muuminiinta Uthman baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dharr u gee lacagtaas markaas uu maxaan ka dhigaa wuxuu de haw kaalmaysta adduunyadiisa markaas uu yiri u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu yiri inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideyda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilayaa waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ay runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dharr lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada han ka baxee i xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxa doonta akhri markaasuu horiga qaado oo ina xariiso maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dharr dhegayso hadalku ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anu addoon xor aan ahay buu xor bas ninkii lacagta isagoo wada Usmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dharr al-Ghifari lacagta daliili mayno ha shaqayso qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baa ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu
inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagin bay adduunyada ku leedahay